الله وبركاته soo dhawaada dhammaan khiyaarta ku xiran Explore Option Somali waxaan doonayaa inaan ka jawaabo 3 su'aalood oo aad iyo aad muhiim u ah. 3 su'aalood waxaa ka mid ah sidee tufaax lacag loo dhigtaa, sidee Perfect Money lacag loo dhigaa, iyo sidee Trust Wallet iyo Perfect Money lacag loogu kala xawilaa. Okay, waxaan rabaa su'aal muhiim inaan ka jawaabo. Horta labadani sida ay labadan lacag iskugu diraan, labadan lacag iskuguma diraan. waxaan rajeynayaa midaan aad fahantaan. labadan waxaa ka dhexeeya link oo kanna link waa lacag loogu diraa, kanna link waa lacag loogu diraa, laakiin labadana si direct kaliya bay lacag iskugu diraan. waxaan rajeynayaa midaan aad fahantaan. haddii mar labaad idinku celiyo, labadani lacag way isku diraan si direct kaliya, laakiin labadani indirect bay lacag isugu diraan. oo kani wuxuu lacag ugu diraa kan link, kana link buu link lacag ugu diraa. oo website la yiraahdo App Exchange baa lacagta loogu diraa. insha Allah waxaan rajeynayaa websitekaas inaan linkiga videoga soo dhigi doono descriptionka, comment ugu horeyna soo dhigi doono. Okay, haddii ku horeyno waxa loo yaqaan tufaax. horta saddexdan application waxaad ka helaysaa Play Store-ka. saddexdan application waxaad ka helaysaa Play Store-ka. imika dad Play Store ku qorto tufaax sidan buu u qoran yahay, Perfect Money sidan buu u egyahay, Trust Wallet sidan buu u egyahay. Okay, markaad tufaax joogto, tufaax waxaa ku dhufanaysaa tufaax dushiisa. kadib markaad tufaax saan ugu dhufato oo tufaax gudaha usoo gasho, kadib waxaa gelin doontaa waxa loo yaqaano, waxaa ku dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay lacag dhigasho. kadib marka hore tufaax laftirkiisa lacag soo dhigataa. tufaax laftirkiisa wanaad marka lacag soo dhigataa. Okay, hadaba waxaad dhigan doontaa saddexdaas markaad hadda ka wadato Golis oo sahla, Hormuud oo EVC Plus ah, Telesom oo Zaad ah. saddexdaa midkaad wadato lacagta soo dhiganaysaa. kadib waa select garaynaysaa. marka la select garayso lacagta diraysaa. marka lacagta dirto lacagta xaggan bay kuu soo galaysaa. okay, lacagta marka xaggan kuu soo gasho waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay lacag la bixid. lacag la bixid markaasaa ku dhufato waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay select payment. kadib waxaa oranaysaa Perfect Money. kadib markaa Perfect Money saa u dhufatay waxaa oranaysaa process markaad tiraahid. kadib waxaa ku dhufan doontaa meesha ku qoran tahay enter amount. kadib waxaa gelin doontaa lacagta u baahan tahay. hadda markaan doonayo $10 inaan Trust Wallet-kii hadhow dhigto, waxaan gelinayaa $10 si khidmadda banaanka la iga jaro. kadib waxaa arki doontaa halkan wuxuu leeyahay lacag kuma jirto. markaad check payment tiraahid lacagta toos waxay aadaysaa Perfect Money-ga. okay, aan ka soo baxnaa hadaba tufaax markaan ka soo baxno waxaa inoo dhiman labadani qaabka lacagta isugu diri lahaayeen. labadana marka hore aan idiin sheegay waxaan ku yidhi labadani direct waxba iskuma diraan si labadan kale direct isugu diraan. labadan waxaa isugu diraan by link by website. okay, hadaba waxaan imaan doonaa labadan website lacagta isugu diraan. kadib websiteka horta waa kan. insha Allah websiteka linkigiisa waxaan soo dhigi doonaa descriptionka iyo comment ugu horeeya. waxaan rajeynayaa websiteka intaad la degto linkigiisa intaad la degto inaad websitekan aad markaad doonayso inaad Perfect Money iyo waxa loo yaqaano USDT lacagta dhaw wax ku dirsanayso inaad halka wax ka dirsato insha Allah. okay, lacagtaad u baahan tahay xaggan sare waxaad gelinaysaa markasta lacagta lambarka laga soo diray weeye. waa lambarka ka soo baxayso exchange haddaad maqasho currency waa lambarka lacagta ka soo baxayso. okay, waxaan gelin doonaa halkan Perfect Money. Perfect Money markaas aad ugu qorto labadan waxaa ku soo baxaya Perfect Money Euro iyo Perfect Money Dollar. marka kasare waa dollar, kasaraad ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay e-voucher markaas aad u dhufatay kadib waxaa gelinaysaa lacagta u baahan tahay. $11 baan hadda soo baalka garaynay oo $11. $11 markii aan waxaan ku dhufano xagga hoose, tan hoosena waxa weeye maaragtay currency unit-ka u baahan tahay. marka halkan waxaan gelin doonaa USDT baan gelin doonaa. USDT hadda way badan yihiin, kuwan waa 3. kadib waxaa gelin doontaa meeshan ay ku qoran tahay USDT Tron Network TRC20 oo dhexe baad gelin doontaa insha Allah. okay, TRC20 markaad soo doorato waxaa arki doontaa in lacagtii aad $11 aad diraysid oo transfer garaynaysid inay noqonayso waxa loo yaqaano $10 iyo shaad centi. okay, anigu waxaan doonayay bas kaliya inaan $10 aan helo. saan markii hore videoga intii hore daqiiqado hore aan ku sheegay waxaan ku yidhi $10 waxaan u dirayaa saan $10 oo nadiif u helo si khidmadda iyo waxa laga jaro. okay, halkan hadda waxaad gelinaysaa waxa loo yaqaano your wallet address-kaaga, USDT-gaaga address-kiisaad gelinaysaa. okay, USDT-ga address-kiisa waxa ku yaala. waan ka soo baxaynaa halkan waxaan imaan doonaa Trust Wallet-keena. Trust Wallet-keena marka aan imaano kadib waxaan ku dulfan doonaa USDT-geena. USDT-geena waxa ku yaala. USDT-geena waa kan. qofka USDT-ga aqoon USDT-geena waa kan. USDT-geena markaan saan ugu dulfano kadib waxaan ku dhufanaa meesha ay ku qoran tahay receive markaan saan ku dhufano kadib waa kan ID-geeni ama ii sheeg waxa loo yaqaano address-keena waa kan. waxaan ku dhufanaa copy. halkan copy markaan aano
arkaysaa inuu noo copy garaysmo already. waxaan kusoo laabanaa website-kii kadib waxaanu copy garaynaa halkan. waxaan rajeynaya insha allah inaan by one aan idinku calaamadiyo meel kastoo aan tegayna inaan idin calaamadiyo insha allah. okay kadib waxaan odhanaya halkan inaan ku dhufto adresskii aan soo copy garaysay baan baaska oranaya. kadib kan waxaa loo yaqaanaa valid email baa loo yaqaanaa. waa emailka iyo valid email haddaad maqashid waa emailka uu kugu samaysan yahay perfect moneygaaga. okay perfect moneygaaga email buu kugu samaysan yahay. aniga emailkii igu samaysan yahay. markaan emailkayga galno kadib waxaan odhanaa term of use baad tig saaraysaa. kadib waxaa odhanaysaa preview. okay haddaba waxaynu oranayaa waxaa loo yaqaano lacagtaad u baahan tahay inaad dirto waa lacagtaas $11 $10 shares waa helaysaa oo USDT ah. waxaad gelinaysaa lambarkan baad halkaa gelinaysaa. kadib waxaad odhanaysaa submit markaad tiraahdo lambarkan baa gelinayna halkaas waxa weeye LTV set okay A2 okay markaan nahno submit data wuxuu inoo gudbin doonaa perfect moneyga website-kooda caadiga inoo gudbin doonaa. okay perfect moneyga website-kooda caadiga markuu inoo gudbiyo kadib waxaa arkaysaa inuu perfect money website-kooda caadiga inoo gudbiyey. waxaa oranaynaa meeshay ku qoran tahay make a payment. markaan make a payment nahno kadib wuxuu inoo gudbin doonaa inaan haddana ID-gana gelino. okay ID-gana halkan bay gelinaa. ID-ga perfect moneygaaga weeyaan. xagga imka ay ku jirto waa perfect moneygaaga. perfect moneygaaga lacagta kasoo diraysaa weli perfect moneygaaga ku jirtaa. kadib waxaa oranaysaa waxaad gelinaysaa lambarka xaan ku qoran waxa weeye 61 okay preview payment baa oranaysaa. marka preview payment tiraahid halkan waxaad gelinaysaa koodhka gmailka kugu soo dhacaya. gmailka kugu samaysan perfect moneygaaga baad gelinaysaa. kadib markaad gelisid already meel xaggan waxaa ku dhufanaysaa continue. kadib lacagtaas way baxaysaa. okay inshallah xarisinaya midda ina isla fahnay. markaan haddaan kasoo baxno waxaan imaanaa Trust Wallet-keena oo isagoo ay lacagtii inoogu soo dhacday. Trust Wallet-keena markaan imaado xaggan waxaa nagu soo dhacaysaa for example xaggan waxaa nagu soo dhacaysaa $10 iyo 25 aan soo dirsanay. $10 25 aan soo dirsanay markay inoogu soo dhacdo kadib waxaan imaan doonaa waxaa loo yaqaano website-kii. okay website-ka markaan imaadno okay imika website-kii waa kan. markaan website-ka imaadno waxaa ku dhufanaysaa meesha ay gelayso. kadib waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay deposit. okay deposit baan ku dhufanaa. kadib markaan deposit ku dhufano isugeena copy garaysanana adresskiina copy garaysanana insha allah. adresski markaynu copy garaysano adres copy baan already waxaa rabtaa adresski inuu copy garaysmay. copy adres markaan imaano halkan bay imaanana. halkan markaan imaano lacagta halkiina gelinaa. kadib adreskan ku baas garaynana lacagtan u baahnay bay gelinaa. haddaan continueynano lacagtii saasay ku baxaysaa. insha allah waxaan rajeynaya midda inaad fahanteen qaabka website lacagta loo dhigo. website-ka baad imaanaysaa dib baad uga baxaysaa $10 halkaasaad ugu imaanaysaa. $10 halkaasaad ugu imaanaysaa. total assetiga balancegaaga baad ugu imaanaysaa $10 oo kugu soo dhacay. kadib baad intaad timaado investment baad waxaa ku dhufanaysaa meeshay ku qoran tahay one day oo investment ya. one day investment waa kan 0.4 baa ku helaysaa waad investment garaysanaysaa. lacagtaadina saasay kugu shaqeynaysaa insha allah haddii ilaahay idmo. waxaan rajeynaya midda inaad fahanteen. okay haddii waxaa jirta su-aal kale oo dhalinta iyo weydiisa inta badan waxaa loo yaqaano Tron because lacagtan waxaa jirta lacag dhaho Tron khidmad ahaan loogu qaato. Tronna waa lacagtan aad u jeedaan halkan kusoo baxaysa. okay haddaba Tron sidee iyadana lacagta Tron loo soo dirsadaa oo markasta khidmad aad dirayso $20 iyo ka badan $1 baa ku baxa. laakiin $10 iyo ka badan $10 iyo ka waxa ku baxa waxaa loo yaqaano ilaa 0.5 ilaa 0.3 inta u dhaxaysa. okay xaggan baad imaanaysaa kadib isla wadiiqooyinka soo marnay baa soo maraysaa. bes kaliya waxaa bedelaysaa meeshii aan ku qornay USDT baa waxaa ka dhigaysaa Tron. meeshii hore USDT ka dhignay unbaa Tron u bedelaysaa. wax weyn oo soo weyn bedeli maysa. it's not big deal. waxaan rajeynaya insha allah midda inaad fahanteen. okay meeshii waatan xaggan sare marka hore waxaan ku buuxinay perfect moneygeena inoo ahaanayo oo e-voucher ah USD ah oo lacagta dollarka ah. kadib waxaa gelinaysaa waxaa loo yaqaano $1 baad u baahnay waxaad gelinaysaa $1 iyo badh si khidmadda banaanka waxaa lagaga sii jaro. okay $1 iyo badh baan gelinaa. lacagtaan u baahanaa currency nidika u baahanayna waa Tron. okay Tron markaan saa u gelino Tronka waa kan Tron khaliya weeyaan oo waa calaamadda casaanka weeye triangle ku jirta. okay way naga khaldantay Tron
tron markaas oo gelino waa kan tron waa calaamadda casaanka haddii na soo baxday kadib markaan tron saan ugu dhufano waxaa arkaysaa $1.5 waxay noo noqotay 20 tron ah okay kadib tronkeena adresskiisaan kusoo laabanana waxaan imaanaa trust walletkeena markaan trust walletkeena imaano waxaan ku dhulfanaa tronkeena waxaan ku dhulfanaa Ziv intii hore aad martay umaad marsaa bis koobi baa soo oranaysa markaad koobi soo tiraado waxaa kusoo laabanaysaa website-kii xaggan baad koobi ku baas garaynaysaa kadib wallet address aad gelinaysaa kadib use time baa oranaysaa kadib preview baad taabanaysaa kadib koorkii baad gelinaysaa koorkii yaraa halkan ku qornaa waa kan koorkan waxaa halkan gelinaysaa kadib submit baa oranaysaa intii hore aan USDT u marnay kala wada maraysaa lacagtana saasa ku diraysaa insha Allah waxaan rajeynayaa inay fahanay oo website-kan waxaan kasoo bilaabay tufaax perfect money iyo waxaan ku xishiyay iyo labadan si lacag isku diraan saan idin sheegay website la yiraahdo Add Exchange oo aan linkigiisa description-ka idin soo dhigi doono comment-iga ugu horeysana idin soo dhigi doono lacagta la iskugu diraa labadan qaabka oo baa la iskugu diraa insha Allah waxaan rajeynayaa inaan website-kaasna idin soo dhigi doono linkigiisa haddii la haydmo labadana iyaguna waxay iskugu diraan si directly caadi bay iskugu diraan fadlan dadka ku cusub subscribe like and share comment wixii su'aalaad qabtaan insha Allah waxaan rajeynayaa comment igu soo weydiin doontaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh